xanta daaroodka caawa soo afjaraya Soomaaliyay baraha bulshada maalin walba waxaad ka aragtaan caawa la kala xishoon maaye Muuse Biixi Ismaaciil Cumar Geelay Xasan Sheekh Maxamuud baa kulma haya boowe kulan yar Soomaali baa jidha boowe oo halku ka dhacaya Djibouti oo haday kulmaanna mustaqbalka daarood baa la soo afjaraya kulan qarsoodi way oo daaroodku ma FBI marka kulamada laga qarsanayay mise darooniska Mareykanka oo argagixisada duqeyn rabto marka saddexdaas mas'uul si dhuumaaleesha daarood dartiis ay dhuumaaleesku kulmayaan aawa aan qacida ka yarsiye idinku kulan baa la socotaan hubba halkaas lagu kala qaybsado hadda idin sheegaaba aawa waya qaybta koowaad ee barnaamijka xantii daaroodka soo jijibinaya come back Finland weeye waa soo laabtay karkariskii u sheen waa wataa qaybta labaad waa qayb la yaab leh waay niman saruura inta xamar ka baxo ay waceeslihii soo laabtay soo carray bay iska dulmarayaan xaran dheer tagayaan saruurkii aan ka joogi weyno waay galad dagaalka sida garaadka u hayay saruurkii aan iska maray meesh waceeslihina oo soo bixin caawa cawaaqib baa haysta kow dhaha inaan hortiina xataa ka soo muuqdo wallahi waajib baa laakiin nin adaga oo waa isku dayaa waya qaybta labaadna Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka qeyr Allah siiye ninkii lafta gareen ahaa ninkii Axmed Madoobe ahaa telefoon buu ka wacay isagoo dhuusan barab jooga saaxiib yaal intaan kadib salaad idinkuma xiran karo waa idinka baxay mac salaam ha warnimeeyo shabaabna la dirirmaysaan oo Kismaayo bay dhaw go'doon mucaaradkiina qaramada Madoobe ilaa Mareykan ay ugu direen oo dibadda hadaa aado koonfur galbeed iyo waxa laga hadlaa wiri Jubbaland mucaaradki markay maqleen telefoon Xasan Sheekh Axmed Madoobe iyo lafta gareen ka canaantana mucaaradki kuwii lafta gareen ee raxan weyn karkarisay wadaanba laakiin kuwii mareexan intuu Xasan Sheekh la safan lahaa waaba mareexanka yaryaraayo dhanba kii doolow kii balad xaawo ikraan taaliil hooyadeed qudhaha laga jaro kulli hadda ay saxabtun bilaabay inay u saxabtumaanba waayahay qaybta u dambaysa barnaamijkan ka dhigan doonaaye aan u soo laabto baraha bulshada waxaa gelgelay hadalhayn daarood oo dhan yaa dhihinay harti ay abuureen Soomaaliyeed aaw intaan sheer garee aniga maalin walba qodob kuma soo noqon karee sheer garee waxay leeyihiin Djibouti baa kulan qarsoodi ka dhacay oo yaa kulmay Xasan Sheekh Maxamuud Muuse Biixi iyo Ismaaciil Cumar Geelay kulan irir Soomaali ah minaha ayaa halkaas qarsoodi uga dhacay hadda waa saddex madax oo East Africa saameyn ku leh ugu Somaliland Soomaaliya iyo Djibouti saddexdaba af Soomaali ku hadla kulmayaan yaa waa cid kale oo Soomaaliyeed horta madaxa oo laga la tashanayo kulankeeda ma laascana laga la tashanaa misgar waa laga tashanaa magaalooyin ma laga la tashanaa macnaha laga soo qayb gelina waxa la leeyahay Xasan Sheekh Muuse Biixi Ismaaciil Cumar Geelay garow waa sharma leeyahay macnaha maxaa la rabin la dhaho marka waxay leeyihiin haddii xataa aayatiinkii qaranka Soomaaliya iyo East Africa laga hadlayo iyo waxyaabo kaleba waxay ku leeyihiin daarada la tashanaa macnaha intaas ba ka soo tag daarood FBI na maaha droniska Mareykanka buuraleyda galgala ku jira iyo kuwii mataqaana daalimaan bursan jirana ma argagixisada ma oo laga dhuumin maayo daarood horta hadii xataa daarood loo shiray inkastoo Xasan Sheekh madaxweynaha Soomaaliya daarood iyo Soomaaliya madaxweyne u yahay xataa qaata laakiin waxa rabaa caawa ina horta karbaash idinku dhufto waxa laga hadlay kulanka ugu dambeeyay kulamadii hore ma ka hadlaayaba kana caaw idin qarxinay daarood isku sheer garee marka buuxa oo huba halkaas uu kala qaatay Ismaaciil Rifriyo ahay Muuse Biixi de wala socotaan oo dagaal uga furan ooga la isku yimid qaybtii soo qaatay Xasan Sheekhna mukayfkii filla Soomaali intuu ka soo tago dhuusamare fariistay ma la yacni mu fadhiyo hubbu isna qaybtiisa ka qaato oo kala diray qawarijta Ismaaciil af marka dhaxda jooga markabka wuxuu leeyahay qaybtan daba jeexan qaado yaa la kala badsan macna labadaba laba cad way leeyahay la kala badsan marka aniga wada daaroodo idin sheegin kulankii qaybta ugu dambeysay waa kaasa horta idinka hadda hub ma ogeenahe ana hadda hubka idin sheegay baasha karkariya laakiin waxaan rabaa Muuse Biixi hadda hub waa qaatay ma garan karo meel 30 iyo dhowr daqiiqo looga soo celiyay ciidankiisa anigu dhacdhacadaas ka meel kaas iska garbaashay haaf hubo Xasan Sheekh la kala jeexdeen inuu hadda laas caano ku tagi karo walow hadda isaaqo bilaabeen waxaa yimid garxajisa yimid garxajis hataa iska dhaaf ciidan kala yimid habaryo nisaa timid habar jaclaa timid awal waxaa taqaan mootay Cumar Maxamuud yimid Leel Kasaa yimid Cismaan Maxamuud yimid isar hadda sheekada isaaqay ku bilaabatay Macawiis la timid waxaan mid isaaqa waxaan weydiiyay warniyo xataa hubka kala jeexda xataa Xasan Sheekh hub kala xataa Ismaaciil Cumar Geelay markabka xataa idin dalbe 400 wiil aan ka maqanay dawala kaftama rag waa kaftama moogtahay
ma laga yaabaa inaa inta soo baxdaan oo aad og meesha qabsataan gooja cadde meesheed gooja cadde maxaa faa'iideyna ku dhaha 400 wiil maqane wallahi waa su'aal isaaq dhan weydiiyay wey inkastoo ha sheegin dheheen hadaba iska sii sheegaya jawaabtee waxay leeyihiin annaga markii nala dilayay dheheen oo guumeysna la geenayay waan la duubay kaamera nagu socoto micnaha alaabtii oo galcad iyo yaa alaabtii galcad iyo masagawa iyo kaamera nagu socotay subax la say annaga markaan waxaan rabnaaye dheheen horta gooja cadde waa dhaafeenaaye inaan drones ku duubno micnaha hartiga saas u duday drones qabdab si kale isaa kuma qanci karna bal aragaane way yahay ya ilaa gooja cadde ilaa meesha la yiraa guumeys 30 daqiiqo nin orday anigu waxaad iskoorka kaliya oo aad jabi kartaan oo comeback ku sameey kartaan waxa waaye 10 daqiiqo inaad gooja cadde ku tagtaan micnaha xasan sheekh nubku waa idin kala bar laag waxaan jeclaan lahaa xasan sheekh inuu markabka dhan idinka idin siiyaan jeclaan lahaa aniga hadaba 10 daqiiqo meesha ku tageysaan waa yahay qaybta koowaad daarood iyo xantiis halkaas ku soo jabiyay inkastoo aan xataa qayb dam u kala kiciyay halkaas aan kaga gudbaaya intaan xasan sheekh oo salaada ka furtay lafta gareen iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe markuu waaqiciga iyo waqtiga saxda ah uu xasan sheekh dareemay iyo cadaadiska meesha caalamka iyo gudahaba intaan u guda gelin reer ani aan ka dhasho la yiraahdo Wacaysle oo ciidan dawlad leh oo macawiisle leh waa ceel dheer iyo galcad iyo masagawa iyo dhulkaas oo dhan qabtay way iska soo baxeen dagaal iyo juhdi iyo dhiig iyo dhaawac iyo mataqa qasaarad naqst oo shabaab isku geysteen ama qabaariista way iska soo baxeen oo ninkii ugu horeeyay dhahay halkaas dhulkii raggii ayaga ahaa oo tolkii waa ka soo baxeen halkaas Yaasiin Fariib ha hogaamiyay Yaasiin Fariib ha hogaamiyay soo baxde ama iyagu tabar beeleen ba soo baxaane waxa iiga daran oo weligay ilaabeeninba nimankii saruur ahaayo inta aan ka karbaashi jiro dhihi jiro saruurku ma nin baa micnaa nin baa xanaaqo iska baxee saruurkiya ilaahay idinku dhaarshay wasaaradda gaashaandhig intay hub ka qaataan iyo logistico ee toos inta isaga baxaan ay cadala iska maraan Wacaysliyo qayilaayo ay abgaalkoo qayila iska dhex maraan wada waa saruur ogow ya hadda waa saruurkii habar gidir rag dhalinay nimankaas ogow bay dhulkii Wacaysla ka soo ordeen iska dhex maraan koor galcad masagawa waliba waxa lagu leeyahay masagawa ay tagayaan masagaba karsaayaan ceeleer tagayaan bariis karsa shabaab inta laga sheegay kuwa Wacaysla ka ordeen shaaha iska shumanayaan qaali iska qiilayaan waas cardeer iska galaan war Wacaysla ceeba qabatay Wacaysla hadda waxay leeyihiin booso 3 birna meeshu saruur maray ma marweyn bal aragaane aniga qabaashka inta idin jooga sideedaba aniga inkastoo Wacaysla ilaahay ka dhalay haddana ninka shabaab la dagaalamaya igu reera aniga Wacaysla ay waxba ma tarto dada shabaab ka soo ordayso saruur marayo saacada laga bilaabo saruurka ahaba aniga soo moog waayahay warkaasna halkaas aan ku xirayaa waxa ugu daran caawa siyaasadda Jubbaland iyo meesha la yiraahdo Koonfur Galbeed aad bay u qasantay Xasan Sheekh dhuu Soomaaliya markuu ku soo laabto shirkii markabkii hubka lagu kala qeybsanay ka soo laabtay wuxuu yiri nimayow Axmed Madoobe iyo lafta gareen oo soo dhawaada waa taa sanad iyo sanad idin kugu daray mucaaradkuna diideen beesha caalamkuna reject itri hadda intaan ka badan idin moodi kara aniga maxaa mucaarad saameyn lana waa idinku hareeraysan yahay inkastoo mucaaradku saameynta leh ha i dambeeye ee raxan weyn yihiin kuwaan daaroodo mareexaana waxa waa yaryarkooda dhan waxaa gatay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe sideedaba aan ku hormarka Koonfur Galbeed raggan Xasan Sheekh uu u deeriyay caalamka u soo deeriyay mucaaradkooda gudaha waa deeriyeen isagana waa tuuray mucaaradkii madasha qaranna waa tuureen Sheekh Shariif iyo kulli waa tuureen iyo Xasan Kheyre marka laba mid jirta mucaaradka Koonfur Galbeed oo lafta gareen ka soo horjeedo waa niman diblomaasiyiin waay qabiil ma ayaga laakiin mucaaradka Jubbaland waa qabiil oo mareexaan ogaadeen diidan waay marka caawar taas rabaa ina iga kala furfuro micna ninkan lafta gareen hariino ka dhash hariina diidan fiiri siyaasiyiinta Koonfur Galbeed oo waa diidan yihiin January doorasho la qabtaa leey waay beesha caalamka oo Ingiriiska ugu horeeyay ciidanka Koonfur Galbeed oo dhan ayada mishaar siisa Xasan Sheekh intuu maraya markuu rabo inuu joojiyo xiriirkooda ama inuu burburiyo haduu rabo sida Sheekh Shariif sida Xasan Sheekh Farmaajo sida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hub intuu iyo ciidan bay dhaba geeyay ama Ethiopian ku leyn maayo nin wasiir oo aad u aaminsan Xasan Sheekh Maxamed wasiir TikTok wasiir jaamac ninkaas horta idin sheegay inkastoo aniga iska dhaliilsanahay Xasan iyo beesha caalamka ninkaas waa taageersan yihiin wasiir TikTok dadku ma oga
imaaraada ka dambeeya oo turki baa ka daba sujuuda xasanna waa wiilkiis waxaan ka qaadi karna male horta ninkaasaa loo diraa wasaaradda gaashaandhigga maamula lafta gareen isagaa ingiriiska kala hadli kara wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayay ka go-an tahay inay jarto mishaarka ciidanka ingiriisku siiyaan lafta gareen iyo maamulkiis kadib maamulka oo lafta gareen waa iska baxayaan mina laakiin lafta gareen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiir jaamac intaaba la gaarinba wasiir Ilyas mayo waa beedhabo ku dhibo gurigo maraba wasiir Ilyas ya maashi wixii ka yaray wasiir Ilyas dhibay walaal mayo ayaa nafta ka qaadaba intaan la gaarin ba aadan madoobe iyo mucaaradkii waa weelaaye shariif sakiir intaan la gaarin Ilyas raaxada ka qaada marka waxaan leeyahay mucaaradkaasi oo mideysan oo aan qabiil lahayn way ka adkaan doonaan lafta gareen Jubbaland marka Jubbaland ka duwan tahay Jubbaland mareexaannimo ayaa ka jirtay ogaadinimo wax liira ayagana intee loo maraa marka su'aal waa xasan meesha uu maraa idin sheegaya halkan wasiir TikTok loo maraa Soomaa xasan Axmed Madoobe horta markuu xamse magacaabo Axmed Madoobe gooracay wixii intaas ka dambeeyay caana nuujis waay naf badan ma jirin waay nimanka ogaadeen dhammaantood shacabka ogaadeen ama jigjiga ha joogaan ama dhagax buur ha joogaan ama gaarasa ha joogaan ama kismaayo jubbooyinka ha joogaan xamse ku daba fiirsiyo salaada ku dukadaan asigi xamsa la isku diraa horta dhakab iga qora waa taariikh iga qora waxay iguma soo dago waxna imaba seegaane nab bal islee halkaas oo taageerada Axmed Madoobe ku weyn doona oo xamsana ku hanan doona dhaqaalihi caalamka uu siin xamsa ka jaray xasan uu sameeyo iska joogaa iyaga lacag bal iska wareegsay mushkilad inta ka jirta marka mushkiladii mareexaanki Axmed Madoobe liicaya oo la leeyahay salaadii waa ka furtay bay hadda waxay bilaabeen nacam leenba kii gudoomiyaha degmada Doolow oo aad ogeedeen Ethiopia u nacam leenayay maanta muuqaal iska soo duubay 5 sano mucaarad kuga 5 sano muxaafidan kuga oo dhaaba kii balad xaawo oo dhaay ikraan taali la hooyad hal la gooraca Axmed Madoobe u saxabtu mooyaa micna adigu mareexaanki yar yaraay oo dhan oo iibsadaba mareexaanki yar yaraay oo dhanba waa iib suuqa kala iibsiga ku jiraan waxaan ogaaday hadaan hawiyana u sheegay hawiye ma wada ogey ilaahu qaba hawiye laba reer mareexaan kala dagaal inta soo harto dhanna bil sida askar bil yaa labadaas reer ma taqaano mareexaan ku jira nimanka reer siyaad la yiraa nimanka wagar dhac la yiraa hawiyow hala dagaalina dagaalkooda ma dhamaado fikrad bay ku dagaalamaan wallahi laakiin inta ka soo harto gaagaabko dhan bil leer ka rabaan micna waa nimanka Axmed Madoobe yaa saa ogad ugu qeelinay oo hooyadiis u caynay oo waalidkiis u habaaray oo Soomaali ugu diray hadda ayaga u nacmay shab waxa yeeraa waa yaab gudoomiyaasha dhan way gado shab Axmed Madoobe aaba Axmed Madoobe shab waanis wada qorax sii dhacaysa u saxbinaan ka waran ya awiyo qishkaas waxa ka faanteen reer siyaad iyo wagar dhac ka carara meesha ku aragtaan waayahay intaas ayaan rabay barnaamijkayga habeennimo inaan kusoo gabagabeeyo waa soo laabtay qaraabo safar dheer oo aan soo maray Aasiya ilaa Afrika reality waxa waaye back home waay marka hadda kadib update iyo karkaris halkan way sii share gareeya sii like gareeya sii buubiya bye